بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland, madaxweynaha iyo shuguddoonka iyo guddoomiyaha xisbiga way fariintii maanta ugu muhiimsanayd madaxweynaha jeediyey annaga waxii aan halkan ka nidhaahnaa waa kaabis. marka arrinta coronavirus-ka maanta cudur inaga inagu kooban Somaliland maaha, waa amar ilaahay oo dunida oo dhan haysta. waa ciidan xoog weyn oo ilaahay soo diray oo nin kastoo xoog weyn ka xoog weyn. waxaa Maraykan haysta waa garanaysaan maanta, dad ka badan nus milyuun buu ku dhacay, dad 90,000 ku dhow uu dilay. waddan kasta ama qaran kasta maanta wuxuu leeyahay inuu midowno coronavirus, inaguna kama duwanin. maanta maalin aynu uga baahi badan nahay midnimo iyo iskaashi iyo isku tiirsanaan ma jirto. dee dhegihii alla waashayba waashay, laakiin tada inoomay hadhin, naseexa inoomay hadhin. guddi qaran baa la sameeyey. waxaan ku talinaynaa in guddigaas dee awaamiirtiisa la qaato oo talooyinkiisa la qaato. weli maynaan qaadan. maqaaxiyii sidii bay isaga buuxaan, kolayadii qaadka sidii bay u camiran yihiin, marfishyadii lama xidhin. markaa talooyinka qaacidada la leeyahay guryaha jooga oo ku nagaadana qaacido gaala keentay maaha, waa qaacido islaami oo islaamku waa kaa yidhi marka cudur dhaco oo daacun ka mid yahay guryihiina jooga. markaa shacbiga waxaan soo jeedinaynaa inaynu u dhiga nuglaano. cudurkuna wuu soo kordhayaa, waddamadaynu jaarka nahay dadka uu saameeyey way soo kordhayaan. inaguna kama duwanin ummadaha kale. markaa taxadarkeenu ha bato, talada ha la qaato, xukuumadduna awaamiirta iyo talooyinka fulin ha ku darto. waxaa kaloo dunida maanta dee guryaha jooga baa la yidhi, iyo waddamada wax haystee lacagta haysta dadkii waxay yidhahan masaariif baanu siinaynaa guryaha joogay. markaa madaxweyne inagoo dhaqaalaheenna dee adduunka aynu ugu qaylinno. dadkii guryaha haddaynu ku xarayno dee waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay ku noolaadaan. marka aynu u baahannahay inaynu qayladhaan weyn samayno oo dunidana aynu qayladhaan u samayno in shacbigana loo soo gurmado. dhaqaalihii dunida wuu burburay, qof waliba wuxuu ka shaqaynaya maanta way istaagayaan. arrinta ku saabsan wadahadalka horeynu dee u bilownay oo 2012 xukuumaddii Axmed Siilaan iyo bilowday. qarankuna midnimo ku galay wadahadalladaas. madaxweynuhu uu sheegay inuu diyaar u tahay Somaliland in la wada hadlo. wadahadalkana sidiisaba xukuumadda u igman, laakiin waxaa daruuriya sidaynu kii hore midnimada ugu gallay inaynu inagoo midaysan gallo wadahadalka, tala midaysanna ku gallo. dad shacbigani waxay naawilayaan inay dee goonisitaankoodii helaan. waxaana rumaysnahay inay ku heli karaan inaynu wada hadallo, waayo wada hadalku gobonnimadii hore 60kiina wada hadal baynu ku helnay. qarannimadeenu sidaa uu sheegay madaxweynuhu dee shuruuc baa jirto, dastuur baa jiro, afti baa jirta, cid ka boodi kartaana ma jirto. baqdintan badan leeyahay madaxweynaha la cararayo meel geynayana ma jirto. salabaanna ma geyn karo, anna meel uma dhaqaajin karo, laakiin talaynu isaga iman doonaa sidaa sheegay madaxweynuhu. arrinta ku saabsan golaha de way iska dhan tahay oo wax lagaga noqnoqdaa ma jirto. waanu is waraysanay maalintii hore, waxaynu talan la isugu iman doonaa. shirguddoonka iyo madaxweynaha iyo axsaabtu way is waraysteen. waxaanu isla garannay markaanu eegnay dee xeer hoosaadkii golaha
labadii xubnoodna la celiyo muddada fasaxa kadib lagu celiyo mar labaadna loo codeeyo markaa taa warkeedu intaasu ku dhan yahay waxaan rajaynaynaa uun si mid haro looga socdo halkaas in maanta midnimada golayaashana ku shaqeeyaan doorashooyinkuna aynu wakti ilaahay keenan ugu iman doonaane laakiin wixii nagaga xidhxidhan innaga inaynu sii dhammaystirro oo aynu u diyaar garowno shacbiga somaliland markale u salaaman yahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu